waxaa ku gaaf wareegaya muuqaallo la moodo dagaal soo socda dowladuhuna waxa ay ku tartamayaan farsamayntiisa iyo ka ganacsigiisa laga bilaabo Maraykanka, Ruushka, Kuuriya, Shiinaha ilaa laga gaaro khaliijka Carabta, Iiraan iyo Turkiga. haddaba maxaad ka taqaanaa sooyaalka tartanka gantaalaha difaaca cirka muxuuse yahay qorshaha dowladaha ku tartamaya وما خريطة المتنافسين حوله hubkii ugu horreeyey ee difaaca cirku waxa uu soo shaacbaxay sanadkii 1870 kadib markii Ruushku uu adeegsaday qoriga ballon cannon si uu u soo rido gantaalaha baarashuudka lagu qaado ee Faransiiska xilligii ay go'doonsanayd magaalada Paris. hubka cusub ee ballon cannon waxa uu dhulka soo dhigay 7 gantaal oo ah kuwa baarashuudka lagu qaado, intii kalena waxa uu ka hor joogsaday inay si xor ah u duulaan. sidaas oo kalena waxa uu soo dadajiyay isdhiibidii Faransiiska sanadkii 1871 soo ridistii koowaad ee diyaarad la soo rido iyada oo la adeegsanayo hub dhulka yaal waxa ku kacay Cuthmaaniyiintii hore xilligii ay dagaalka kula jireen Talyaaniga sanadkii 1912 waxa ayna diyaaradaasi ku soo dhacday dhulka Liibiya markii uu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka. iyada oo la adeegsanayo diyaarado ayay dowladuhu bilaabeen inay ku tartamaan difaacashada bartilmaameedyadooda dhulka, badda iyo cirka waliba si aad u qoto dheer. dowladihii dagaalamayayna waxa ay gacanta ku dhigeen madaafiicda lidka diyaaradaha oo ah nuucyo kala duwan, kuwaas oo loo yiqiinay AA Gunneries ama AA Gunneries, waxaana lagu jiidi jiray gaaragacan ama kaariyoone iyo fardaha. jihaynta iyo ridista hubkaas waxaa loo adeegsanayay qaab gacanta ah iyada oo ay ka garab shaqaynayaan raadaarada iyo kunjiyado waaweyn oo ilays ku shaqeeya, kuwaasoo habeenkii lagu baarayo hawada sare. si ka duwan gantaalaha baarashuudka lagu qaado diyaaraduhu ma ahayn bartilmaameed sahlan. guushii Jarmalka oo dhan sanadkii 1914 waxa ay isugu soo biyashubatay soo rididda hal diyaarad oo keli ah. ha yeeshee horumar la taaban kara ayaa la gaaray kadib markii dagaalkii sii holcay. xasuuq dhab ah ayaana ka dhacay hawada sare ee Yurub sanadkii 1917 waxa ay taariikhdu diiwaan gelisay soo rididdii Jarmalka ee 1500 oo diyaaradood, halka Faransiiskuna soo riday 500 oo diyaaradood iyada oo Ingiriiskuna uu soo riday ku dhowaad 350 diyaaradood. horumar weyn ayuu sameeyey difaaca cirku intii u dhaxaysay labadii dagaal ee adduunka, waxaana la adeegsaday madfaca Krupp oo Jarmalku sameeyey nuuca 88 mililitir intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Spain. intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku, Ingiriisku markii ugu horreysay waxa uu ku daray raadaaradiisa nidaam haga rasaasta madaafiicda wax yar ka hor dagaalka. taasina waxa ay keentay inuu awood u yeesho soo rididda diyaaradii ugu horreysay ee Jabaanka, taas oo ku dul dhacday Singapore iyada oo la adeegsaday gantaal nuuciisu yahay 4.5 inji. iyada oo haddaba dagaalkii sii fiday siina kululaaday ayaa waxaa soo baxay nuucyo badan oo hub ah oo la hindisay, kuwaas oo u badan hubka lidka diyaaradaha sida qoriga darandooriga u dhaca ee Jarmalka ee Fliegerfaust oo garbaha laga rido, madaafiicda Bofors iyo madaafiicda nuuca M ama shilkaha ee Maraykanka. iyada oo haddaba la sameeyey horumar weyn, haddana natiijooyinkii la gaaray ma ahayn kuwo lagu qanco. difaacyadii dhulka ayaa la jebiyey iyada oo la adeegsanayo dhinaca cirka 90%. dhammaan duqaymihii dagaalka ee dhinaca cirku waxa ay xaqiijiyeen bartilmaameedyadoodii ka soo guuridda haleelidda bartilmaameedka iyada oo la isticmaalayo 30,000 oo xabadood iyo u soo guurinta 4,000 oo xabadood. wax badan ma aanay beddelin intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeya Midowgii Soofiyeed iyo Maraykanka. hannaanka difaaca cirku waxa uu qayb ka ahaa tartanka ishubaynta iyo dagaalada wakaaladda ee u dhexeeya labada dowladood ee caalamiga ah si looga hortago hub cusub oo ay ka mid yihiin gantaalaha balastiga oo awooda inay xambaaraan madaxyo nukliyeer ah sida gantaalka Somyork oo uu sameeyey Midowgii Soofiyeed, kaas oo ay ridadiisa ama fogaanta uu wax ka dili karo ay gaaraysay 9330 kilomitir, iyo gantaalka Atlas oo ay ridadiisu gaaraysay 18,000 kilomitir isla markaana uu sameeyey Maraykanku. hannaankii difaaca Ruushka ee ugu caansanaa xilligaas waxaa ka mid ahaa gantaalka Sa-75 Davina, kaas oo awooday inuu dhulka soo dhigo diyaaradda Lockheed U-2 ama Dragon Lady ee Maraykanka intii ay taaganayd dhibaatadii Cuba sanadkii 1962. waxaa kale oo jiray hannaanka difaaca Sam oo aad u kala duwan. waxaa ka mid ahaa nuuca garbaha lagu qaato oo loo yaqaano Sam 7. Sam waxa uu ka ciyaaray kaalin muhiim ah isaga oo ka dhinac dagaalamaya madfaca shilkaha soo rididii diyaaradaha Maraykanka sida Ba-52 intii uu socday dagaalkii Vietnam sanadkii 1955 ilaa sanadkii 1975.
tiro badan oo ka mid a saamna waxaa iibsaday suuriya iyo masar kadib khasaaradii la yaabka lahayd ee dagaalkii 6da maalin ee ay la galeen israa'iil sannadkii 1976kii maqnaanshaha hannaanka difaaca cirka oo wax ku ool ah ayaa sabab weyn u ahaa khasaarihii masar iyo suuriya ee gaaray inta badan ciidankoodii cirka ee xilligaas difaacan cirka ayaa kaalin weyn ka qaatay isbeddel ku dhacay miisaanka awoodda labadaas dowladood iyo israa'iil intii lagu jira dagaalkii feejignaanta sannadkii 1969 ilaa 1970 iyo dagaalkii oktoobar ee qarnigii tegey marka la eego hannaanka difaaca cirka ee ugu caansanaa maraykanka waxaa ka mid ahaa hannaanka difaaca gantaalaha qaranka ee nexus hannaanka ilaal oo ujeeddadiisu tahay inuu ka hortago gantaal walba oo balastig ah oo sida hub nukliyeer ah oo ay suurtagal tahay inuu ka yimaado dhinaca midowgii sofiyeed iyo hannaanka difaaca afanjar intaasna waxaa dheeraa gantaalaha stinger oo qof keli ah uu adeegsan karo taas oo suuro gasha sannadkii 1981 waxa ayna gantaalahaasi ahaayeen sababta xabaalihii diyaaradihii midowgii sofiyeed maalmihii uu socday wixii loo yiqiin jihaadka afghanistaan 80yadii qarnigii hore iyada oo haddaba la tixgelinayo waxa u dhexeeya wixii tegey ee fog iyo faahfaahinta maanta waxaa sii badanaya magacyada hubka difaaca cirka nuucyadiisa hindisidiisa iyo adeegsigiisa dhulka badda iyo cirka iyada oo hubkaas lagu farsamaynayo waddamo badan oo ka mid a adduunka ayaa haddana qaarkiis la kala xulan karaa waxaana lagu magacaabi karaa difaacyada ugu halista badan tusaale ahaan hindiya oo kale waxa ay haysataa labada difaac ee baadh iyo aad kuwaas oo uga hortagi kara gantaalaha fogaan dhan 30 ilaa 80 kilomitir oo dhinaca cirka ah shiinaha oo kale waxa uu haystaa hannaanka difaaca hong ga-9 kaas oo awooda inuu dhulka soo dhigo 9 nuuc oo ka mida diyaaradaha iyo gantaalaha taas beddelkeeda israa'iil waxa ay farsamaynaysaa hannaanka difaaca dahaarka birta ah kaas oo u gaar ah ka hortegidda gantaalaha ay riddadoodu tahay 4 ilaa 70 kilomitir iyo shucaaca isna birta ah oo adeegsanaya fallaaraha laysarka si loo soo rido bartilmaameedyada riddadoodu tahay 70 ilaa 300 kilomitir sidaas oo kale israa'iil waxa ay haysataa hannaanka difaaca ee sahmi 3 oo awooda inuu ka hortago gantaalaha meel ka baxsan hawada israa'iil waxaa jira hannaan difaac oo ay wada leeyihiin talyaaniga iyo faransiisku waa hannaanka difaaca aster waxa uu awoodaa inuu ka soo rido bartilmaameedka fogaan dhan 100 kilomitir ha yeeshee horyaalnimada maraykanka iyo raashiya ayaa weli sii ah mid fariid ah hannaanada difaaca batriyot iyo thad ayaa ah cududda difaaca ugu xoogga badan ee maraykanka hannaanka difaaca batriyot waxa uu awoodaa inuu uga hortago dhammaan nuucyada diyaaradaha iyo gantaalaha fogaan dhan 80 kilomitir waxa uuna u shaqeeyaa si awtomaatig ah iyada oo aan loo baahnayn in bini'aadamku lug yeesho ama ka shaqeeyo waxaana loo iibgeeyey oo laga iibiyey dhowr waddan oo isbahaysi kula jira maraykanka sida dowladaha yurub khaliijka carabta jabaan iyo kuuriyada koofureed marka la eego hannaanka difaaca maraykanka ee thad oo aad halis u ah waxa uu xadayn karaa bartilmaameedyada gudaha iyo dibadda hawada fogaan gaaraysa 200 kilomitir dowladda keli ah ee heshay ama maraykanku siiyey waa imaaraadka carabta maraykanku waxa uu haystaa hannaan difaac oo argagax badan kaas oo isaga u gaar ah loona yaqaano GMD ama ground based mid course defense kaas oo loogu talagalay ka hortagga gantaalaha balastiga ah oo ay suurtagal tahay inay ridaan dowladaha kuuriyada waqooyi iyo iiraan waxa kale oo jira hannaanka difaaca Aegis oo u taagan difaaca gantaalaha badda kaas oo ku xiran maraakiibta iyo guujisyada dagaalka maraykanku waxa uu haystaa 33 markab oo ku gaashaaman difaacaas ruushku waxa uu haystaa 2 hannaan oo difaac oo caan ah waa 300 oo qadiim ah balse u dhigma hannaanka difaaca batriyot ee maraykanka waxaa loo badinayaa inuu awood u leeyahay soo ridista gantaalaha tomahawk ee maraykanka waxa kale oo uu haystaa hannaanka difaaca 400 oo awooda inuu bartilmaameedyada ka garaaco fogaan dhan 200 ilaa 400 kilomitir waxaana ruushku diyaarinayaa hannaanka difaaca 500 kaas oo la sheegayo inuu bartilmaameedyada ka duqayn doono fogaan dhan 600 oo kilomitir si haddaba lagugu sii kordhiyo argagaxa bal arag hannaanka difaaca ee 235 nodal ee ruushka kaas oo warbixinnada warbaahinta ruushku ay sheegayso inuu diyaar u yahay inuu ka duqeeyo dayax-gacmeedyada meel ka baxsan hawada ruushka wakhtigu waa socdaa farsamaduna waa sii hormaraysaa iyada oo ay koobmeen dagaaladii tooska ahaa ee u dhexeeya dowladaha waxa ayna u muuqataa in tartanka difaaca hawada ee maanta uu noqday mid ka badan kana ballaaran aalad ama qalab garaad ama caqli leh oo ku dul wareega waddanka waxa uu isu rogay
ganacsi ribix badan oo ka faa'iidaystay walaahowga iyo cabsida xukuumadaha sheekaduna waxa ay ka tagtay tartan ishubayn ah iyada oo u dallacday tartan ganacsi oo ay hogaaminayaan labada dawladood ee ugu waaweyn adduunka meel walba oo aad ka tagta qaaradaha adduunka waxaad arki doontaa hannaan difaac oo ruush ah ama hannaan difaac oo maraykan ah ama labada difaac oo wada jira oo ay hal dawladi wada haysato sida sacuudiga oo saxiixay iibsiga hannaanka difaaca SA-400 ee ruushka sannadkii 2017 iiraan iyo shiinaha waxa ay iibsanayaan hannaanka difaaca SA-300 ee ruushka waxa ayna quudaraynayaan iibsiga SA-400 iyada oo indiyana ay ka iibsanayso ruushka iyo israa'iil si ay u wajahdo bakistaan jabaan iyo kuuriyada koofureed waxay ka iibsanayaan maraykanka iyaga oo ka cabsanaya kuuriyada waqooyi difaacyadani waxa ay ahaanayaan hubka gabaad laga cabsado oo u kaydsan adeegsi kooban ha yeeshee hubkani ma ku jiraa gacan ammaan ah bal ka warran haddii uu galo gacanta kooxo hubaysan oo xag jir ah dhammaanna waxaa la xasuustaa dhacdadii diyaaraddii maleeshiya oo lagu soo riday gantaal iyada oo dul maraysa yukrain ayna ku dhinteen 280 qof oo la socday sannadkii 2014 bal ka warran haddii hubkani gefo bartilmaameedkiisa dhabta ah sabab la xidhiirta dhinaca barnaamijyaynta ama burcad u dhacdo habka kombiyuutarka laga maamulo kaba sii mudane ka warran haddii uu holco dagaal caalami ah oo cusub iyada oo ay taal tirada intaas la eg oo ah hub waxlaaya xaaladdan oo kale sheekada ku saabsan soo rididdii gantaalkii baarashuudka ee faransiiska sannadkii 1870kii waxa ay noqon doontaa oo keliya maad iyo qosol holac madow ayaa haleeli doona wax walba oo samada ku duula ama ku dabaasha hawada dhow waxaa cilladoobi doona xarumaha telefishinka waxaa la joogsan doona dhaqdhaqaaqa badmaaxa caalamiga ah iyo 100,000 oo duulimaad oo maalin walba ka kacda daafaha adduunka haddaba xaggee u socdaan awoodaha waaweyn ee farsamada difaacyada cirku muxuuse yahay mustaqbalka uu sugayo adduunku iyada oo dawladuhu ku tartamayaan gacan ku hayntiisa